Cusmaan Cabdi Xasan iyo Cali Uunsow Maxamed oo ay ka wada tirsanaayeen kooxda Al-Shabaab ayaa waxa ay go'aansadeen inay ka soo goostaan kooxdii ay ka wada tirsanaayeen. Labada nin oo muddo ay ka fikirayeen inay ku soo biiraan ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa u suura gashay. Qoryaha fudud ee AK-47 iyo rasaas ay wateen ayaa waxa ay ku wareejiyeen maamulka degmada Buur-Hakaba. Ugu horeyn waxaa warbaahinta la hadlay labada nin ee ka soo goostay kooxda Al-Shabaab. Damay ka saftay. Walba daruufta ka sabaasay ogda. Kitaab runtii liinfeedi waa maqaaqeen. Hadar kuma furooyogda. Kitaab shunna yani may booyni liinfeedi ma ka faraasnaayna qalbiga ni ma ogolaaynayoona. Ilaahay muqaadirkiis miil horkooyna niba waqtigay ma dheeraneeb. Ma faangne. Ana wadanka amantii aan kooy oo afar bilood oo kale ay meelo roogay lan kuma aan waqtiga aan kooy qooban inta kooy korkooy shabaab in sheegayle tasada marteeda keen yani may baa geed min kasta la hadalay markaan marada waxaan ka tirsanay madha maxuuna kuma marada wallahi ana ka hortaba tanjiidi lan kuma marada suugay sadartaan gaari abta sare bay inta baad tamam tirsana ma ka tirsanaa fadayna badayna lagu niyo soo gurla halaw dartii yaa gaadan ka darana gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo gudoomiyaha amniga degmada Buur-Hakaba ayaa waxa ay sheegeen in qof kasta ee ka soo goosta Al-Shabaab la soo dhaweyn doono. ma siin jeediyay wax dinidin absu ka abuuranta oo amal siin hire ma siin hire doona inta kala kooyto ma hire doona hatta boqol hadda gal boqol ka insha Allah ma balan qaadana anta si faylan qaabil doona si sin qaabilni ik doron qaabil doono oo wajin fayla iga ma furan haka dhawaay doon insha Allah howlgal bilaaran qaadana waan si degdeg ah saacadu hatta ni foodle howlgal bilaaran qaadana oo uu isku dooman shacabkana ciidankana walwalba kullasa ka dhagaago doon hoy Ilaahay arooba namankan arag haytan oo geega kooyan saacadu hatta waan yani raasuna la masaa kooyan halay hagaleen iidan anka maxsanin waan hadawayaan. Ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada Buur-Hakaba Maxamed Ibraahim Nur Wantem ayaa waxa uu sheegay in shabaabka ku nool deegaanada Koonfur Galbeed ay dawladoodii isu soo dhiibaan. Dibka geega degmooyinku go'doonsan meel kale umad kale islaamiga qabta mar argaa geega degmooyinku go'doonsan digina marifno tijeelu dashay baahay dhamaayay diin soo dashay baar magaalay baahay dhamaayay u furo baahay dhamaayay weedida dashay baahay dhamaayay fudursaasi kadalika gedan ina tarayaadi meeloodi maraayna qulqulaayna umadon kalma lan dhabkaas gaba la aragay mal aragaw la roonshana bagaanka aysan halaare ma baan sheegane dadku walaalna waan ka tirsan shabaab Ilaahay ku absada diin gadaalkana qoyti mala diintii hore sahaysan ilaa wadankan godoomeeyay sidana umada dhamaaya san walaalnyogi ka tanaasula meel dhow haysatan marshal heraw waqti dhow oo Ilaahay arooba ma bilaawdo doona hoosan doorka dirhaytan doorkaas kala doonan doorkalkiya bilaawda oo dalasa kala ka xisaabtama Xuseen Ali Geese RTN Baydhabo.